amirooyinka qarsan ee CC camera ayaa duubay waqtiyada dambe ee ka dukaameysay xaafadaha Islii ee wadanka Nairobi dib afduub bay u geysteen waxayna ka soo duubeen muuqaalo iyagoo ka sameynaya ama iyagoo ka soo duubay jirdilkii ama dhibaatooyinkii ay u geysteen gabadhaas markaas waxay dalbadeen lacag ku dhawaad 5 milyan waxa aadi sanadadan dambe waxa aad ugu soo batay wadanka Nairobi afduubka loo geysanayo gabdhaha hablaha Soomaaliyeed ama dhibaatooyinka loo geysanayo hablaha Soomaaliyeed marka waxayna aad ay gabadhan u geysteen ama ay dhibaatooyin ay u geysteen gabadhan kamid ahayd inay aad u jirdileen ama jirkeeda ay ka dhigeen xubin ugu dambeys ee CC camerada duubtay ama markii ka adeeganaysa xaafadaha Islii waa meesha lagu afduubtay ama meesha waqtigeeda ugu dambeysay ee CC camerada ay qabato Soomaalida oo magaceeda la dhaho Xafsa Maxamed kuna dhalatay wadanka Soomaaliya ama dhalashadeeda rasmiga oo yahay wadanka Soomaaliya marka waxaana dhibaatooyinka aad u soo batay ama waayahan dambe aad u soo badatay jirdilka loo geysanayo gabdhaha Soomaaliyeed ama qurbaha ku nool ama wadankooda ka baxsan sirdoonka wadanka Kenya ayaa waxa uu ka hayay baaris far badan ama wuxuu ku bixinayaa waqti aad u far badan waxaana aad loola yaabay ama ay tuugadan qidada ay degeen ama sida ay u degeen qidada sababtay tahay lambarka ay soo wacayaan lambarka baaris lagu sameeyo ama lambarka dabagal lagu sameeyo marka lambarka dabagal lagu sameeyo in lambarka oo meesha oo joogo ama meesha ka soo hadlayo ama meesha waqti xaadirkaas ku sugan yahay laga rabay in ay shoogo ama ay sheegto ay wax waliba ay waxay tuugada mar hore ka degeen ama qorshaad ama waxyaabaha keeni karo in ay waqti xaadirkaas meesha ay ku nool yihiin ama ay meesha ay joogaan waqti xaadirkaas ama gabadha afduubka ay ku haystaan meesha ay ku haystaan in ay la ogaan gabadha Soomaaliyeed afduubka u geystay ama dhibaatooyinka u geystay waxay ay ka afduubteen ama meesha ay ka afduubteen iyo meeshaan ay CC camerada ay ka duubayso in ay isla meeshaan ay waqti xaadirka ay markaas ay ku sugnayd ay ka afduubteen ama ay markaas ay si diyaarsadeen gaarigii ay ku afduuban lahaayeen ama gaarigii ay gashan lahaayeen jirkeeda ku saameeyeen ama jirkeeda ay ku saaqeen ee suntii lagu mandoori lahaa ama markaas ay ku suuxi lahayd markaas ay si tartiib ay ku gareen gaarigii ay wateen ee markaas sidaas ay ku wateen ama ay meeshii ay rabeen ama waqti xaadirkaas meeshii ay iyada muuqaalada ugu soo duubayeen ama meeshii markaas ay iyada waqti xaadirkan ay ku sugan tahay ilaa hadda ay sirdoonka Kenya ilaa hadda ama baaris ku hayaan ilaa hadda la ogaalaaya meeshii ay gabadhaas ku nooshahay ama meeshii gabadhaas lagu hayo ama lagu muuqaalada loo soo duubayo waxayna caasi far badan ku beeraysaa ama hablaha ku nool ama gabdhaha Soomaaliyeed oo ku nool wadanka Kenya sababtay tahay mar walba ay arkaan ama mar walba ay la kulmaan waxyaabahan oo kale ama muuqaaladan oo kale ay arkaan afduubka loo geysanayo hablihii Soomaaliyeed ama gabdhihii Soomaaliyeed iyo jirdilkii loo geysanayo ama ay dadkii ama afduubtay ama dadka dhibaatooyinkaas geystay ee dalbanaya intaas malaayiin ama intaas kumanaan oo lacag ay dalbanayaan marka waana wax aad looga xumaado ama wax ay qof waliba ama gabar walba qoys walba soo jeedo aan awoodi karin ama intaas milyan inay bixiso marka waxaan dhihi karnaa waana arrin aad looga xumaado 100%